noolahan haddii uu hal mar wax cuno waxay ku qaadataa dheefshiidkiisu inuu shiido muddo dhan 30 maalmood 24 saacadood habeenkii iyo maalintiina wuxuu ka seexdaa 22 saacadood oo kamid ah yacni wuxuu soo jeedaa 2 saac oo kamid ah wuxuu quutaa bakteeriyada iyo cayayaanka ku nool jirkiisa sidoo kale wuxuu cunaa caleenta geedaha xayawaanka ka hadlaynaa waa kan inoo muuqda waxaana lagu magacaabaa sloths annaga Soomaaliyeed haddii aan magac u bixinana waxaan ugu yeedhi karnaa caajislow amba hurdaaye sababtoo ah wuxuu iska dul hurdaa geedaha dushooda saacado aad u badan waana caajis halkuu ka marayo waxaana laga yaabaa inuu wiiga dhan hal mar dhulka u soo dego waxaana loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah noolayaasha ugu socodka gaaban waxaa macquul ah inuu 1 kiiloomitir u socdo 20 maalin waa haddii uu maalin kasta socdo 2 saacadood oo xidhiidha waxyaabaha la yaab kale ee laga diiwaangeliya xayawaanka waxaa ka mid ah midda dhidig markay u baahato lab way cidaa maadaama xayawaankan uusan ahayn xayawaanada u nool kooxaha taas beddelkeeda waxay u nool yihiin keli midka labna markuu maqlo codkeeda ayuu u soo dhaqaaqaa dhankeeda mararka qaar waxaa macquul ah inuu codkeeda ka maqlo meel uu u soo soconayo muddo dhan 18 maalin oo xidhiidha dhanka dhalmada midda dhidig waxay ilmaheeda ku sidaa caloosha 6 bilood badanaana waxay dhashaa hal cunug waxayna dhashaa iyadoo ka soo laalaada geedaha waxaa cajiiba inay ilmuhu dhalanayaan iyagoo indhaha kala haya sidoo kale waxay leeyihiin ilka si buuxda u samaysan cidiya afaysan iyo xoog ku filan haddaba daawad adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo waa maxay xaqiiqda la yaab kale ku saabsan xayawaankan taasoo adiga ku soo jeedatay qaybta commentiga hoose iigu sheeg ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube profile ka saaranna aad subscribe dhaado